السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada qormo aynu ku eegayno wadanka Talyaaniga oo sheegay arrin ku saabsan dhanka ka hortagga xanuunka coronavirus ama COVID-19 iyo isla markaasi qaab cusub uu la tacaalayo oo uu ka dhawaajiyay amaba uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Conde. sidaynu wada ognahay xanuunka coronavirus ayaa xanuun si xawli ku fidaya isla markaasina gaaray wadamo badan oo kamid ah caalamka isla markiisii horena ka soo bilaabmay qaaradda Asia gaar ahaan dalka China. wadankii marka labaad noqday wadanka ugu badan ee dadkiisu ay u soo dhaceen xanuunkan oo ah wadanka la yiraahdo Iran ayaa waxa imika kala baxay booska labaad dalka Talyaaniga. haddaba ra'iisul wasaare Conde ayaa sheegay in gebi ahaanba marka la gaadho bisha Abriil horaanteeda la karantiimi doono gobolka la yiraahdo Lombardia oo ay magaalo madax u tahay magaalada Milano isla markaasina gobolka ugu dadka badan ee una dhaqaalaha badan ee ku yaala waqooyiga dalkaasi Italia. gobolka Lombardia oo ah gobol xuduud la leh dalka Swiss gaar ahaan magaalooyinka Piazza iyo Chiasso ayaa waxa la sheegay in ay ku sugan yihiin 50,000 oo qof oo looga shakisan yahay inay qabaan xanuunka coronavirus. ra'iisul wasaare Conde ayaa waxa uu sheegay in marka waqtigaasi la gaadho la go'doomin doono gobolkaasi iyo dadka ku dhaqanba maadaama 50,000 oo qof oo laga shakisan yahay ay ku sugan yihiin gobolkaasi. magaalooyinka Pescara, Firenze iyo magaalooyin kale ayaa la sheegay inay yihiin kuwa sida gaarka ah loo go'doomin doono isla markaana loo karantiimi doono. dalka Italia ayaa isagu waxa uu gebi ahaanba meesha ka saaray xafladaha aroosyada, aasaska, nightclub-yada, ciyaaraha sida Super Calcio Italia oo isagu gebi ahaanba la kala diray. waxaana uu intaa ku daray in nightclub-yada loo ogol yahay iyo meelaha jiimka iyo dabaasha inay furnaadaan 6 subaxnimo ilaa 4 galabnimo ee saacada wadankaasi Italia. sidaana waxaa sheegay ra'iisul wasaare Conde oo isagu markaasi ah ra'iisul wasaaraha hogaamiye dawladda wadaaga ee dalkaasi Italia ka dhisan aqlabiyadina ay leeyihiin xusbiga kan ee Forza Italia. suxuf Signore Herbert Media Hargeysa.